بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عينت ومهدسن yahay intii hore uga hadashayna aad iyo aad ayay u qurxisay waa mahadsan yihiin. Aniga meel kale ayaan ka fiiri lahay intii la yiri waa fiican tahay oo hadda cilad iyo ceeb kama sheegayo, laakiin meel kale ayaan ka fiiri lahay mashruuca dastuurka. مشروع الدستور كأرميه سفر سما معهن لا يرى إيو إن درجرد أنت مال فريسو محاسة ومالي قدنا ومحسة مشكلة ده الجيران أما سو جيران كأي أما نجاهر إيمان كرب بري قرني الكو إلى بعتنا دوام محي أنت يرادو نو حيرية نو قراهي سومالي نواكبوحان هدي أن أبان كلمة أجنبية يفرسمنا إكسبرتس نوالي هلي وأنا اللي هلي جري nagamala meeshaas inta faraha badan ee hadda waqti sanadaha dheer ee laga soo hadlay in laga soo shaqeeyay inta waa joogeen khubaro Soomaaliyeed waa joogtay experts ajnabi ah oo maxaan ku raadna kaalmeynay waa joogeen dhaqaale fara badan muxuu ahay caalamku waa ku bixinayay haddana ma sameysmin wixii aan rabna maanaan gaarin dadaal la bixiyay ahayday dadkii Soomaaliyeed ee qiimaha leh hawshaas ku mashquulayna dad muxuu ahay qiimo badan ay ahaayeen caalamkii nagu kaalmeeyeen caalam Soomaaliya niyad wanaag iyo u ahay laakiin wixii aan rabnay maan gaarin marka haddii aan meeshii haddana ku noqono oo hadda muxuu ahay dawladda soo socota haddana aan dhahno gudiyadii hal magacaabo ama ayaga sii jiraya shaqada ha wadaan ee caalamkii meeshii haddaan ku noqono haddana meeshii ku soo dhamaa jirto bay ku soo dhamaanay laana haddii aad wixii aad sameey jirtay oo aadan ku gaari jirin hadafkaaga haddana mar kale aad ku celisid oo aadan ku gaarin waa tii la dhihi jiray waa nooc januuniyada ama waalnaanshaha ka mid ah waa tii la dhihi jiray ani marka waxaan fiiri lahaa dastuurka iyo meel walba Soomaaliya shalay iyo maanta intaba waxaan ku celcelinay oo madaxdii iyo dadkii aqliga badnaa ee hadloo dhan ay sheegaan dalkan inuu dagaal sokeey soo maray dawladda inay burburtay dagaal sokeey oo ku xigay la kala meermay waxaan rabaa inaan gadaal ugu noqdo dawladnimada casriga ah markay noo imaanaysay Soomaaliya dadkan Soomaaliyeed waa deganaayeen dhulkan Soomaaliya la yiraahdo magac ayaanu lahaynina waa jiray قبائل كان Soomaaliya maanta waa ishaystaan leeyahay waa deganaayeen laakiin dawlad ma ahayn qolo walba ceelkeeda sidii u cabi lahayd iyo muxuu ahay daaqeeda sidii u daaqi lahayd heshiis ayada ay ka mid tahay laakiin midka koonaha jooga kan kale koonaha jooga wax kala dhaxeeya ma jirin waan ahayn in Soomaali yihiin in muslimiin yihiin dawlad xukunkeeda dalka gees ilaa ka gees u gaaro isticmaalka noogu horeeyay xeeraraan lahayn xeerarka marka kuwa islaamka khuseeyay iyo Soomaalida khuseeyay laga yimaado noo kala gaaray ahaa jireen hal xeer laga yaabaa saddex meelood oo geographic location oo dalka kamid ah tagtay in si kala duwan loogu dhaqmay laakiin hal xeer oo ninka raas galbooni jooga iyo raas caseer jooga iyo kalaawi cadda jooga isku si u dhaqayay isticmaalka noogu horeeyay waana dawladnimada astaamaheeda kadib waxaa dhalatay marka inaan isdhex galno oo reerkii geeska jaga uu guuro magaaladaas dago kii geeska kala joogay dawladdu u shaqeeyo la bedelo xagga la geeyo dadka Soomaaliyeed isdhex galaan ganacsiga isku dhex galaan shaqada isku dhex galaan inta badan la isdhex galo oo maxaan ku yiraahdaa deegaanka soo tagtaba cid kasta Soomaaliya aad ku arkayso oo deegaan ahaan deegaankaas u deganay laakiin dawladnimadu ay keentay iyo amniga iyo damaanad qaadka dawladda daraadeed ay keentay jir burburkii markuu dhacay maxaa dhacay waan noqonay meeshii isticmaalka markuu noo imaanaya aan joognaan u noqonay bas waxaan ka duwanahay meeshii telecommunication casri ana waa haysanaa internetna waa haysanaa diyaaradana airport yar sameysana waa ku duulnaa waa ku soo degnaa iyo wax la mid ah laakiin reer walba geedkii iyo ceelkii iyo meeshii uu asalkoodii deganaayo u noqday waa la kala meermay caqabadaha dawladnimada haysta number 1 ay ka tahay dadkii in la isku soo celiyo ay isku soo noqdaan waa waxa aad iyo aad muhiim ku ah qolooyin qurba jooga mar aan la hadlayaa waxaan dhahay yani isla waaya ka dhaxay qurba joogta iyo dadka gudaha jooga
dadka qurbaha jooga waxay rabaan dalkii oo degan oo barwaaqo ah oo amni ah oo meelaha ay ku nool yihiin oo kala ah inay inta soo guuraan ay soo degaan marka dhinac kale ka fiirsana dalku wuxuu u baahan yahay waa ayaga horta inay yimaadaan xalka ay qayb ka noqdaan oo aanay iimaanayn marka mujtamaca horta waa saas dagaala dhacay marka waa la isdagaalay dagaalkii madaafiicdii xabadaha ahay yaan ka soo gudubnay waa joojinay waa ka soo gudubnay laakiin xaggee u gudubnay dagaalkii madaafiicda ahayaan dagaal siyaasadeedaan u bedelnay waa midka maanta taagan laysma aaminayo waa la isxagalgaadayaa reer hebel maxay uga bateen reer hebel maxaa ninkan loo waxeeya annagaa nala quursanayaa annagaa nala waxaynayaa reer hebel intaasay heleen annagu maxaan u heli weyn dagaalkii madaafiicda ahay waxaan u bedelnay siyaasaddii aan keennay laakiin dagaalkii weli waa taagan yahay dagaalkii weli waa taagan marka inta isxagalgaadkaasi socdo wixii aan wada lahayn saan ku samaysannaa waa adag tahay waagii dee isticmaalku u yimiday waana lagu khasbay inaan isdhex galno inaan joogno ka joogaa liyi qof walba kii lahay dadkan xaggee u socdaan kii dhihi maaga waxaa la yidhi muwaadiniin waa ka leexo laakiin maanta awooddaasna way naga maqan tahay waa naga maqan tahay marka horta dadka soomaalida waxaan u baahanaa inay fahmaan way nagu adkaanaya hawsha wayna nagu sii daba dheeraanaya 30 sanaan maraynaa haddaanan si dhaba dadku aanay u heshiinin waa laga hadlaa madaxda hadda iga horreyso kale aad igu hadlaan waa run kalsooni in la abuuro laysku kalsoonaado laakiin dee kalsoonidu kelmada kuma timaado war kuma timaado kalsoonidu technically iyo farsamo ahaan qaab ay ku timaado la garanayo ama dhaqan ahaan loo yaqaano ama adduunyada casriga iyo cilmiga casriga lagu yaqaanay leedahay laakiin kuma mashquulsanin waxaan ku mashquulsannahay wax aanan hanan karin aan ku mashquul marka waxaan qabaa dastuurku waa laga yaabaa dastuur aad iyo aad u qurux badan inaan soo dhiganno inta farsamo yaqaano u yeerano inay noo soo qoraan inkastoo weli aanan gaarin laakiin meesha waxaa ka maqan wuxuu yahay wixii la soo qaray maxaa 114 kan aqaanaa ka akhrisan maaya ka horeyso lama dhihi jirin dastuur kastoo qurxanoo la keena taabageli dhaqan waa wax maanta nahays heshiisaan gaarnay raalli la isaga yahay dhaqangelintiisaa farqaha iskala raaracnaa maanta sidii u dhaqangeli lahaa dastuur qurxan inaan samaynana biri farqaha iskaga raacna laakiin qodobka koow aasaaska ah waxa waaye dastuurkan siyaasiyan in looga heshiiyo oo dagaalka siyaasadeed laga dhex saaro siyaasaddana qabaa'il aniga kama heshiin karaanaan qabaa maanta meel fiicanay joogtaa oo looga heshiin karo waa nidaamka federaalka ah dhexdiisaa looga heshiin karaa maamulladu ha ka heshiiyaan siyaasadda iyo dowladda ciddii loo wakiishay meeshaas waa ka bacdina dadka inta u keenaan ha ka iibiyaan ha yidhaahdaan waxaanan soo waxayn muhiim waa dadku inay qayb ka ahaadaan waxaas layerska iyo lakabyada ha kala sarreeyaan laakiin dadku waa muhiim miaal heshiisyadii dowladdii hore ay samaysay oo dhan in badanoo ka mida ma socon ma dhaqan gelin waa maxay sababta madaxdii heshiisyadaas gashay meesha waa ka baxday inteeda badan cid og ma laha institutionadeenna waxayna waa weyn shacabka ma oga wixii aan shalay mugaan madaxda ahayno meesha joogna aan ku heshiin maanaan gaarsiin shacabka oo qayb kama dhigin inta qaada heshiisyada anaga waagii madashaa jirtay madashu waxay ku soo heshiisay inta la soo qaado baarlamaanada dowlad goboleedyada la keeno oo dhaqanka iyo bulshada dowlad goboleedyada ku nool oo Soomaalida dhan loo sheego oo la yiraahdo waxaanu Soomaalinimo ah oo heerkaas aan ku soo heshiin lama yeelin waxyaabaha aniga aan aad iyo aad u qirsanahay gaabis shalay inaan ka sameeynay ka mid tahay maantana waa laga sameeyo weli marka waxaan qabaa aniga heshiiskaas horta oo rasmiga oo kalsoonidii abuuri lahay meesha waa ka maqan tahay qodobooyinka farsamada markaan u soo noqdo dastuurka in la Soomaaliyeeyo ayaan qabaa aniga ma Soomaaliyeysna maxaan ka wadaa in la Soomaaliyeeyo dastuurku waxaan ka wadaa in la Soomaaliyeeyo lacag Soomaaliyeed waa in lagu sameeyaa dadka Soomaalida jeebadahooda lacagta ku jirta ee tax payerskooda ah ee budgetka dawladda lacag ka timid waa in lagu sameeyaa oo aanan lagu sameeyna lacag kaalma oo dibadda ka timid dastuurku uma baahna billions dollars uma baahna markaan ka nimaado mentality-ga aan wadana laakiin waa ka imaan karna war in samayn karta dastuur waa lagu jirtaa oo dastuuro hore oo badan oo hore loo soo sameeyayaan intaan akhrina kana waa ugu fiican yahay qodobkan aan ka qaadana kana aan iska dhaafno yaan dhihi karnaa maanta sharciga dalkan looga dhaqmo inta badan burburkii ka hor iyo wixii ka sii horeeyay 60meedii 50meedii shuruucdii la sameeyay wali ku dhaqanaa
dasaatirtii hore loo soo sameeyey inaan dib inta u diso waxaan ka qaado wixii kale oo qarnigii 20aad iyo muxuu ay soo baxaan in ijtihaad lagu daro oo laga sameeyo marka dad Soomaaliyeed sameyn kara intaas way joogan dad Soomaaliyeed oo la siiyay beesa Soomaaliyeed inay sameeyaan yaan qabaa dastuurka oo aan ajnabi loo kaashanin waa qabaa waa ka maaranaa inaan sameeyno waa qodobka labaad waxaan qabaa dastuurka Soomaaliya loo sameeynayo xuduudaha Soomaaliya banaankeeda inaan lagu soo sameeyo dastuurkan maalina neebaasho la tagayo maalina xagga la tagayo maalina baxardaar la tagayo maalina inta la tagayo ma u arka aniga inay spiritkii oo dastuur sameynta inay dadkan dhibaataysan baadiyaha jooga abaaruhu ay ku dhacayaan duruufaha gaarka ku jira colaadu dhax taalo waxa loo sameeyay waa dadkan geedka quraca ee maxaan ku raadaay hoostiis in lala tago iyo ceelka maalina garoow la yimaado maalin bay dhabaha la geeyo maalin Kismaayo maalin Jowhar maalin maxaan ku dhuusan mareeb maalin ba meel iyo meeshii kale aan loo tago laakiin in oo xuduud diyaarada la raaco hotel 5 star la seexdo ma qabo spirit waxay tusay series inaanan ka ahayn sameynta dastuurka iyadana waa qodob labaad oo aan isleeyahay Soomaaliyeynta dastuurka marka la soo qaado ayay ku jirtaa marka waxaan leeyahay farsamada waa sida la sheegay la federaaleeyo la waxeeyo yani hawl aanan hal teeramo 4 sano iyo 2 teeramo 8 sano aan ku dhamaan karin qaarkeed ayaa ku jirta laakiin in wax laga sameeyo ogolaano muxuu ahay dastuurku inuu noqdo working document shaqeynayo oo maalin walba wax lagu darayo wax laga waxaynayo nidaamka cadaaladda waxaan dhahnay aan federaaleyno garsoorka iyo cadaaladda shuruucda meeqa waqti aan u baahannahay inaan dambiyada suurtagalka ee dhaca iyo xeerarka jira kuwee heer muxuu ahay dowlad goboleed ah kuwee heer dowlad dhexe ah intay la kala egyihiin kee maxkamadaha dowlad goboleedyadu ay qaadayaan mase maxkamadahoo dhan inaan maxkamadda dowladda dhexe hoostaga aan ka dhigano adduunyada labadaasba waa la sameeyaa dambiyada inta la kala qaadqaaday in la kala qaybsado oo waa federal crime iyo waa maxaan ku la kala yiraahdo iyo in nidaamka cadaaladda waa midaysan yahay la yiraahdo hal nidaam ma ka jiro dowladda dhexe waxyaabaha ay mas'uulka ka tahay lagu daro marka waxay u baahan tahay ayadana waqti komishinada waxa spiritka dastuurkeena dastuurku waxa loo sameeyay 4.5 aan ka gudubnaan lana in looga gudbo spiritka dastuurka maanta noo yaala ee qabyada ana spiritkaas wuxuu ku sameeyay 4.5 ka ah gudiyada commissionka 800 gudoomiye 9 gudi dhamaantood hadad fiiriso ama waa 9 xubnood ama waa 5 xubnood waa 9 xubnood macnaheedu waxa waa 4 times 2 plus 1 waa 4.5 ku salaysiin waa 5 xubnood macnaheedu waa maxay waa 5 beelood marka waa u jeedaa yaani transformationka dagaalkii madaafiicda ahayo dagaalkii siyaasadeed iyo dagaalkii iyo habkii qabaliga ahay u soo bedelmay marka aniga waxaan qabaa dastuurku dooda dhaadheer iyo maxaan ku iraahdaa discussion dhaadheer u baahan yahay caqabadaha soo haysi jiro annaga naga horeeyay baa waqtigeennii haystay haddana kuwii baa ayaa wali haysto kuwa soo socdana si kale haddana looga sii baxay haddii sidii waxa loo sameey jiro loo sameeyo wali ma arkaayo waxaan u baahannahay wadooyinkii hore iyo xeeladii hore dastuurka lagu sameey jiray inaan ka gudubno dastuurka qodobada uu ku jira iyo articleska ma aha dhamaystirkooda waxa aan ku waxaynayn waa ta hadda la sheegayay dawladda maanta joogta iyo dawlad goboleedyada maanta joog qaarkood baydhaba waxa la yiraahdaa heshiis lagu soo gaaray oo resourceska lagu qaybsaday sida la yiraahdo oo maxaan ku iraahdaa amniga looga soo heshiiyay oo maxaan ku iraahdaa war waxaas maxaa haysto dastuur la'aan ma haysto bas dastuur daraadiisa ay u dhaqan gali laayeen u shaqay laayeen soo tiri dhamaan ku keen muxuu ahaa heshiiskii September ee maxaan ku iraahdaa doorashada hadda la galay ku keen ishuuga waxa waaye wax kala naga maqan waxa kale oo naga maqan aan raadino waxaas dastuurka bas hortaagna amniga hortaagay kana hortaagay annaga waageynay midalan madaxweyne Axmed ayaa ka jooga ragii berigaas muxuu ahaa taladaas aan isla gaarin sideedii qofood madasha ay ka koobnay ciidamada in oo ciidamo national la sameeyaan ku garanay guddiyan u saarnay waa soo qoreen
guutadii ugu horeysay ayaa la soo qoray tiradeeda dowlad goboleedyada iyo ha laga kala keenay ayaa loo qaybiyey waa ku heshiinay dowlad goboleed kasta dhexdeeda ilaa dowlad goboleedka laftiisa reeraha kala degan oo jufooyina kala degan oo waxba kala degan lafsadeeda sidee looga sii dhaxsaxayaa waa ka hadalnay waa ka heshiinay bas waa un keenistiya ayadana waqti dheer lagu qaadatay iyo muxuu ahaa culayskii doorashada oo aad iyo aad cuslaayo asna aan xoog badan isugu geyn waxa farsamo ahaan waa looga heshii karaa laakiin waxay u baahan tahay ruux spirit ahaan in looga heshiyo ayay u baahan tahay dadku ay qanaacad ka qabaan waxaan waa waxanagii dadka wadana waa dadka aan u dirsanay in la dhihi karo oo dadku ay yiraahdaan amniga markaa asigana ma ku sii fogaanayo architecture hebel iyo maxaan ku yiraahdaa annaga waageena waxaan sameynay national threat assessment maxaa dalkan qatar haysto national security policy waa sameeyay warqado fiican oo qurxoon oo luqad qurxoon ku yaalo waa noo yaalin intii meelo in la marsiyo rabo waliba waa la marsiyo marka wali waxaan dareemayaa raali la iga ahaado in meeshaasi ay ka maqan tahay ruuxdii dawladnimada iyo is ogolaashaha iyo is aqbalida inay naga maqan tahay farsamo aanay naga maqnayn marka heshiiskii siyaasadeed oo shala sheegayo war waxaan siyaasadda in laga heshiyo u baahan tahay siyaasadana wax walba ku jira amnigiyaa ku jira cadaaladiyaa ku jirta dhaqaalihii iyo resourceski iyo khayraadkii iyo powerkii iyo qabkii dawladnimada xataa sidii loo isugu matalayaa ku jira layeriska kala duwan siday u kala lahaanayaan ku jirta laakiin heshiiskaas siyaasadeed oo dad badan laga yaabo war hadda heshiis siyaasadeed lagu soo celceliyay heshiis siyaasadeed muxuu yahay maalinteeda iyo madasheeda insha Allah taala yaa ayadana aan sharaxi doonaa heshiis siyaasadeed waxa laga wado nidaamka federaalka go'aana lagu gaaro waa la qaatay way fiicnaan lahayd dawlad dalka dhan hayso oo sovereign ah oo dalka haysaahay inay go'aan ku gaarto ayada iyo dadkeeda dalka hala federaaleeyo aad iyo aad u sahlanaa lahayd in la federaaleeyo laana ninkii wax ku dheelay jooga la dhihiraa kii maxaa wax dib u dhigaya ha u dhigin laga yeeli maaye ka daayaa la dhihiraa laakiin maanta waxa waaye in adeerowdii yay joogtaa in adeerowdiina meelo badan waa ku shaqaylaada iyo reer hebelna meelo badan waa ku shaqaylaada marka nidaamkii federaalka waxaan qaadanay shalana ma xasuusto madaxdii hadashay qof kamid ah ayaa ka dhawaajiyay madaxweyne qoorqoor inuu ahay u malaynayaa nidaamka federaalka waxaan qaadanay annagoo horta dawladdii aanan hayn oo dawlad sovereign oo gacanta dalka dhan ku haysahay oo awaamirteeda geesi ka socota aanan qabin yaan nidaamka federaalka go'aan ku gaarnay waxaa kaloo nidaamka federaalka go'aan ku gaarnay annagoo dhaqan iyo aqoon aan u lahayn dawladnimo dhaqanka qabaliga ahee maxaan ku ihahdaa iska egalitarianka marka laga yimaado nidaam aan naqaano aan hore ugu soo dhaqanay oo kii aan naqinina waa anfici waay aan ka guurnaa dhan marka dadku yaanay dhibsanin in lasii kufo oo lasii kaco oo la daaho oo la waxaysmo waa duruufahaasaa keenaayo in muxuu ahay la waxeeyo laakiin waxaan la aqbali karnaa waxay tahay inaan hal meel joogno waa inay muuqataa inaan soconno aan gaabinno socodkeennu ha yaraado laakiin waa inaan soconno inay muuqato waay haddii laakiin inaan soconno ay muuqan weydo rajaxumaa dhalanay wixiina waa waxaysmaan annaguna aniga waagaygii sida uu cabdiraxmaan u sheegay dawladda puntlandaa jirtay samaysneed jirtay nidaamka federaalkaana advocate u ahayd oo u hadlaysay laakiin dad badanaa rabay nidaamka federaalka oo taariikhiyan waa la garanayaa reeraha soomaalida qabaa'ilaba sidii shalaba meesha looga dhawaajinay federaala fadaana markii digil imrifla ay lahaayeen ma dhaweyn marka nidaamka federaalka rabitaankiisu dad badan oo Soomaaliya waa ku soo horeeyay haddana go'aana lagu gaaray cid kasta oo mas'uuliyad qaadaahay option u furan ma jiro oo aan ahayn nidaamka federaalka inay dhaqan geliso ciddii dhinac mari tagtahay ayadana xukunkeeda iyo taladeeda iyo sharafteeda iyo haybadeeda dhaawace dalkana waa la degay dib u dhacay u keenay si looga leexan karo ilaa Soomaali inta isku timaado war heer dhawaana anfici waay bahalkii amaan ka noqonaayo si kale u duunaa ilaa laga yiraahdo nidaamka waana la dhaqan geli karaa dalkana waxaan u malaynayaa maanta in badan oo kamid ah dadka intii wax taxliiliso oo
qiimayn samaysahay fawaa'idda uu u leeyahay in la arkay waa qiyaasaya geeskaas haddii qalalaasa ka jiro geeska kale waa degan yahay dowladdii xamar markii la isku qabsaday xamar ay ka burburtay gobollada ayadoo dhisan oo wax walba u dhisan yihiin ayaa la joogi waayo oo lagu soo kala tegay laakiin nidaamka federaalka jubbaland haddii qalalaasa qabto puntland iyo hirshabeelle iyo maxaan ku idhahdaa galmudug waa joogaan haddii hirshabeelle ay qabto waxaa deris la ah maxaan ku idhahdaa galmudug iyo koonfur galbeede ma gaarayso waa joogaan mararka qaarkood aan saaxiibadayda hadda taladahay kula kaftamaayo waxaan dhahaa haddii koonfurta gaalkacyo laga bilaabo ilaa dhoobley la geeyo gobernatoreyaal dowladda dhexe iyo madaxweynuhu ay magacaabeen ay joogi lahaayeen maanta sidee dalku u ekaa lahaayaan marmarka qaarkood dadka weydiiyaan dad waxay yidhahdeen dalku waa toosnaa lahay waa qurxanaa lahayo waa isku duwanaa lahay dadaa yidhaah dadna balaayaa ka dhaceen waqti aan qaaca meel walba ka taagnaa lahayn dadaa yidhaah laakiin waa arrin oo in la taxliiliyo oo la qiimeeyo u baahan waana meelaha ay ka muuqan karto nidaamka federalismka ee weli aanan weliba noo hana qaadin meelaha sida fawaa'idda uu leeyahay ee mujtamaca nooceenna weliba meesha aan joogno maanta muxuu ahaaye na anfacayo marka waxaan qabaa arrimuhu aniga meeshaas aad u sarraysa ayay iga joogaan farsamo igama joogaan waa mahadsantihiin